dowladda Somaliland ayaa xabsiga dhigtay wariye Idris Alteso oo sifo aan sharci ahayn ku tagay gudaha Somaliland. sidoo kale ninkan ayaa lagu helay cadeymaha ah inuu warar aan jirin ka faafiyay dagaalka magaalada Laascaanood iyo ciidanka militariga Somaliland. wax sahlan ma aha in ciidan qaran oo dalkooda difaacanaya laga faafiyo warar been abuur ah ayadoo loo adeegayo cadowga. waxaana uu wariye Idris uu bartiisa Facebook marar badan ku faafiyay warar aan jirin oo lagu sumcad iyo magac dilayo ciidanka Somaliland ayadoo uu si toos ah ula saftay kooxaha huwanta ah ee dagaalka ka wada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. sidoo kale wariye Idris oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya haystana dhalashada dalka Holland ayaa Somaliland ka galay dhinaca xuduudda bari ee gobolka Sanaag isagoo heli karay safar midkaas ka fudud si sharci ahna uu ku tagi karay Somaliland. laakiinse ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay inuu gudaha Somaliland ku galo dhuumasho iyo sharci la'aan isagoo aan soo marin baaritaan iyo checking. waxaana halkan ka dhashay tuhun xoogan. sidoo kale laamaha ammaanka Somaliland ayaa lagu bogaadiyay qabashada ninkan maadaama ay Somaliland ku jirto dagaal toos ah oo aysan xilligan xaaladdu ahayn sidii hore. sidoo kale ninkan ayaa u baahan baaritaan iyo xaqiijin dheeraad ah maadaama lagu ogaa inuu qayb ka ahaa kooxaha warbaahinta ka dhaleeceeya Somaliland. sidoo kale waxaa baraha bulshada isqabsaday qoraaladii uu ninkan horay uga qoray Somaliland ayadoo ay dadka Soomaaliyeed la yaab iyo been abuurkii ugu weynaa ku tilmaameen. sidaad u jeedaan qoraalkan wuxuu qoray xilligii uu bilowday dagaalka aan weli dhammaan ee magaalada Laascaanood isagoo ciidanka Somaliland ku eedeynaya inay guryo shacab xoog ku galeen ayagoo doonaya inay laayaan dad shacab ah. sidoo kale sheekada ugu xiisaha badan ee la xiriirta ninkan ayaa ah inay dad badan soo cusboonaysiiyeen qoraaladii uu ninkan horay u qoray ayadoo ay baaritaan ku bilaabeen markii uu ninkan tegay Hargeysa dibna ay qoraaladiisa u soo saareen. dadkaas ayaana lagu tilmaamay sirdoonka qarsoon ee Somaliland ee miidiyaha jooga. waxaana ay tani cadayn u tahay inuu jiro isla xisaabtan dhab ah oo qof walba oo qora warar been abuur ah lagula xisaabtami doono xilligii Janice lagu helo. sidoo kale waa mid uga baahan dadka baraha bulshada wax ku qora inay ka fiirsadaan oo aysan ku dhiiran inay sheegaan warar aan sal iyo raad lahayn oo been abuur ah. daawada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada muuqaalkana la wadaag asxaabtaada.